Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka dalka Maadi Maxamed Guleed Qadar ayaa ka qayb galay munaasabada ay xilka kula wareegaysay wasiirka cusub ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda Soomaaliya Xaniifa Xabsade. xafladda xil wareejinta oo ka qabsoontay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ayaa waxaa wasiirkii hore ee wasaaraddaas Marwo Deeqo Yaasiin Xaaji ku soo bandhigtay waxqabadka wasaaradda ee muddada ku dhow 3 sano ee barko ay xilka ka haysay. Marwo Deeqo Yaasiin Xaaji oo maanta xilka wareejisay ayaa ka sheekaysay waxyaabaha muhiimka ee wasaaradda oo ay qayb ka ahayd shirweynaha haweenka ee laga soo saaray axdiga haweenka. sidoo kalena golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay oo Soomaaliya qayb ay ka tahay ayay kaalin weyn ka qaadatay wasaaradda sida ay sheegtay wasiir Deeqo Yaasiin Xaaji. ugu horeysiyo shirweynihii haweenka ee noo qabsoomay sanadkii 2019 oo runtii ka soo baxay ahdigii haweenka oo haweenku ay maaragtay hadafkoodii iyo hiigsigoodii ay meeshaas uga soo saareen. sidoo kale dhisidii guddigii xuquuqda insaanka runtii Soomaaliya oo ka mid noqotay meeshaan way ku habboontahay markii ugu horeysay ay ka noqoto golaha qaramada midoobay maaragtay xuquuqul insaanka oo runtii sharaf badan noo soo hoyday oo ummadda Soomaaliyeed maaragtay ay tahay waxay ku faanaan ilaa 2021 xubin aan ka noqon doono aan kan ahaanayno insha Allah. wasiirka cusub ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Xaniifa Maxamed Ibraahim Xabsade oo maanta xilka la wareegtay ayaa sheegtay in xilli doorasho ay ku soo aaday balse ay u baahan yihiin loo laleeyo xuquuqda aadanaha. wasiirkii hore ayay kaga mahadcelisay kaalinteeda wasaaradda waxaana ay sheegtay in xilligan doorashada ay u ololeynayso in haweenka ay kaalin muuqato doorashadan ka qaataan. wasaaraddan waxay ka mid tahay hay'adaha ugu muhiimsan ee dalkeena, sidaas darteed waxaa in hor yaala shaqooyin adag oo u baahan in si fiican loogu shaqeeyo. marka hore waxaan u mahadcelinayaa wasiiradii hore wasaaradda siday sheegtay dowladnimadu waa qor isku dhiib. dadkii iyada ka horeeyay meel bay kasoo bilaabeen, meel bay keeneen, iyadana meel bay kasoo bilowday, meel bay keentay. maantana anigaa la wareegay iyadoo meel fiican joogto. أنا وحنا رجعنا إن شاء الله بإذن الله الكريم قف إيجاد دمبيو أو عن حلق كوري دوما إن أنا جنا جرا أنا وصي ساعي كله إنه يقدروا. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka dalka Maadi Maxamed Guleed Qadar oo ka qayb galay munaasabada waxa uu ku amaanay doorka muhiimka ee wasiirkii hore ka qaadatay horumarinta haweenka. wasaaradda iyo wasiirka hadda la wareegay waxa uu kula dardaarmay in kaalin muuqata ay ka qaataan sidii haweenka iyo qoyskaba kaalin ay kaga qaadan lahaayeen doorashada soo socota iyo horumarinta xuquuqda insaanka. maanta waxay joognaa xafladda xil wareejinta wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka oo ah wasaaradda halbowle laba shaqo oo waaweyn gacanta ku haysay wax badan oo runtii 3 sano iyo barkii ummaddu dhisnay laga qabtay sidaqi ka qabatay hagidii iyo tilmaamihii iyo lanqaadidii madaxweynaha kulintoodii ku salaysnaa oo ay ugu horeyso kow shuruucda iyo siyaasadaha halbowlaha waxa dalka dhismihiisa in wasaaraduhu ay ka shaqeeyaan. intii aan golaha ka ahaa waxaan ka markacayaa wasaaradda iyo shuruucda iyo siyaasado ay soo gudbisay la ansixiyey qaarkoodna sida sharciga naafada heshiisyo caalamiga oo xuquuqul insaanka golaha ay mareen la meelgeliyey oo ay mareen hay'adaha sharci-dejinta dinkooda kuwo kalena golaha ama ay yaalaan ama ay ka gudbeen. haddii shuruuc iyo siyaasado dalka ku shaqeeyaan waxay tahay in hay'adaha dowladda ay dhismayaan sharciguna uu kala hagaag. dhinaca xuquuqul insaanka waxyaabo badan baa iyo barkii laga qabtay ka horna ilaa 2020 way shaqooyin fiican baa soo qabsoomay. haweenkii wasiirada ahaa oo inta badan iyo wasiirada iyo wasiirka maanta lagu wareejiyey xilkan waxay tusaysaa in meel badan haweenka Soomaaliyeed oo hooyooyinkeenii ah aasaaskii qoyska Soomaaliyeedna ay wax gaarsiin karaan haddii shaqooyinka ay ku gaaraan. dhinaca kale ah
shaqooyinka kale ee wasaaraddu ka shaqeynaysa ee isku xirka hay-adaha ay khusayso dhinaca xuquuqda siyaasadda ee haweenku leeyihiin ka shaqaynta dadka baahiyaha gaarka leh xuquuqdooda iyo arrimaha qoyska ka shaqayntooda carruurta waxyaabahaasoo dhami waa waxyaabaha halgowlaha u ah wasaaraddan in la sii meel mariyo meel dheer la gaarsiiyana waa waxaynu diyaar u nahay xukuumadduna ka shaqayn doonto run ahaantii oo siyaasaddan ka mid ah xuquuqaha kale aasaasiga ah ee ay leedahay haweenka iyo qoysku ay leeyihiin baa ka mid ah in kootada haweenka la tixgeliyo oo mar badan ay guddada siyaasadda ama tiirka siyaasadda loo dhan yahay uga looxogaraysay wasaaradda oo uga hadli jirtay xukuumadduna ku dartay run ahaan marka taa xukuumaddu waa ballan qaadaysaa heshiiskii siyaasadeed ee hadda ay madaxda qaranku kala saxdeenna qeyb u ka yahay in kootada in la tixgeliyo xuquuqda dadka baahiyaha gaarka ah leh oo iyagana la meel mariyo waa qayb kale oo muhiima marka waan wada shaqaynaynaa halgankaas lagu wadi jiray ayaa wasiir xaniifka iyo wasiir ku-xigeenka iyo dhammaan howlwadeennada kala duwan ee wasaaradda iyo xildhibaanada labada aqalka u yaalla haweenku ha helaan xuquuqdooda aynu xaqiijinno kootada haweenka ee 30% ee talaada golayaasha sharci dejinta ah. Yaxye Maxamuud Maxmed, SDN TV, Muqdisho.